marka la isku soo noqod wanaagsan qiyaartina daawanaysay waxaan ku hormarayaa wasiirka amniga gudaha ee Israa'iil Itamin Ben Gavir iyo in ka badan 1250 oo ah dadka Israa'iiliyiinta ay ku deegaameeyeen deegaanada dhulka Falastiiniyiinta ayaa maanta si qasab ah waxay ku galeen masaajidka Al-Aqsa iyadoo oo wasiirka waliba si adag ay ciidan u ilaalinayeen. dowladaha carabta iyo xogaga iska cabinta ee Xamaas war-saxaafadeed ayay soo saareen. Xamaas waxay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda tallaabada wasiirka inay qayb ka tahay qorshaha la doonayo in lagu baabi'iyo masaajidka Al-Aqsa iyo sidoo kale qayb ka mid ah gubaysaha Israa'iil qorshihiisa isballaarinta ee gudaha dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan daanta galbeed. dowladaha kale ee carabtana war-saxaafadeedkooda waxay ku cambaarayeen tallaabada wasiirka amniga gudaha Israa'iil uu qaaday iyo sida qasabka ah ee ay ku galeen masaajidka Al-Aqsa. xogaga iska cabinta ayaa howlgalkii ay duufaanta Al-Aqsa ugu magac dareen waxay ku tilmaameen mid lagu difaacayo guud ahaan masaajidka Al-Aqsa iyo dhulka Falastiiniyiinta, waxaana dadka marka ay banaanbaxyada ka dalbanayaan ay raaciyaan waa inay si isku mid ah u cambaaraysaan waxa ka soconaya guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta. dhinaca kale Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa maanta mar kale weerar xooggan waxay ku qaadeen gudaha Israa'iil, waxaana Israa'iil ay sheegtay inay ka hortagtay diyaarado droonis ah oo dhanka Yemen ka yimid. diyaaradahan ayaa waxaa lagu waramayaa in lagu weeraray agagaarka magaalada Gaza, gaar ahaan deegaanada Israa'iiliyiinta ay degan yihiin ee Bani Netzarim loo yaqaano. war-saxaafadeedka ka soo baxay Israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradda drone halkaasi looga hortagay. sariga digniinta ayaa isqabsaday deegaanada ku yaala koonfurta magaalada Gaza iyo deegaanada Israa'iiliyiinta ay xoog ay ku haystaan ee ku hareeraysan magaalada Gaza. dhanka iyo Syria haddii aan eegnana koox hubaysan ayaa lagu waramayaa inay bartilmaameysatay saldhig ciidamada ah ee dowladda Suuriya ay ku leeyihiin duleedka magaalada Suwayda. wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Syriana waxa uu sheegay in kooxa gaangis ah ay doonayaan mar kale inay gobolka Suwayda ama magaalada Suwayda ay ku soo jiidaan qalalaaso iyo dagaallo kale oo halkaasi ka dhaca. kooxda weerarka geysatay maanta ayaa la sheegay inay taageero ka hesho Israa'iil. arrimahaasi waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. tan iyo markii banaanbaxyo xooggan ay ka dhaceen safaaradaha Masar ay ku leedahay qaar ka mid ah dalalka caalamka, eedaynta ugu badan waxaa loo jeedinayo ururka Ikhwaanul Muslimiin, waxaana la sheegay inay iyaga yihiin cidda ka dambaysa banaanbaxyada xooggan iyo sidoo kale in Masar lagu cambaareeyo xiritaanka wadada Rafah si gargaar loo gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. warbaahinta Al-Carabiya oo laga leeyahay sutag Imaaraadka Carabta ayaa maanta baahisay warbixin cinwaan looga dhigay shirqoolka Ikhwaanul Muslimiin ay maleegayaan ee ka dhanka xukuumadda Qaahira. waxaana lagu waramayaa in xubnaha ururka Ikhwaanul Muslimiin ay abaabulayaan qorshe afgambi ah oo ka dhana xukuumadda uu hogaamiyo Cabdifataax al-Siisi. warbixintu waxay muujinaysaa in Ikhwaanul Muslimiin gaar ahaan hogaamiyaal ku sugan dalka dibaddiisa si gaar ahaan dalka Turkiga ay qorsheynayaan isku dayo lagu carqaladeynayo xasiloonida Masar sida lagu sheegay warbixinta, iyadoo laga faa'iideysanayo 3 arrin oo ah kicinta dadka shacabka ah, dibadbaxyo lagu godoominayo safaaradaha Masar ee dalalka caalamka iyo hadallo lagu dhiirigelinayo in gacanta lagu dhigo gacanka Siinaay lana farageliyo amniga dalka Masar. ma jiro wax jawaab oo Ikhwaanul Muslimiin ay soo saareen, laakiin ururkan ayaa gabi ahaanba urur argagixiso looga yaqaanaa gudaha dalalka Sacuudiga, Masar iyo sidoo kale Qatar, waxaana laga mamnuucay dalal badan oo xitaa ay ka mid tahay dalka Jordan oo dhowaan soo saaray war-saxaafadeed ururkan ay ugu aqoonsanayaan sida urur argagixiso oo kale. ururka Ikhwaanul Muslimiin waa urur islaami ah oo siyaasadeed. waxaa la aasaasay sanadkii 1928 waxaana aasaasay Xasan Al-Banna. hadafkiisu waxa uu ku sheegay ururkan dhismihiisa inay tahay dib u soo celinta nolosha islaamka ee dhabta ah iyo dhismaha dowlad islaam ah oo ku salaysan shariicada islaamka. waxaa kaloo ahdaafta ururka qayb ka ah in diintu ay tahay nidaamka dhammaystiran ee nolosha oo dhan, sida maamulka siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada, bulshada iyo sidoo kale xukunka. muuqaal lagu baahiyay warbaahinta marka uu ka soo muuqday hogaamiye ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin oo fadhigiisu yahay dalka Turkiga oo Maxamed Al-Haami lagu magacaabo ayaa sheegay in calaamad muujinaysa guusha kacaanada Carabta ay soo dhowdahay, laakiin waxaa lagu eedeynayaa ururkan inay taageersan yihiin in Israa'iil ay gacanta ku dhigto gacanka Siinaay inkastoo aysan ka jawaabin. waxa ururka lagu eedeeyay in sidoo kale qayb ay ka ahaayeen banaanbaxyo ka dhacay gudaha Israa'iil. tanima waxay qayb ka tahay qorshe kale oo la doonayo in lagu cadaadiyo ee dowladaha xukunkooda aadka u dheeraaday, iyadoo Imaaraadka Carabta toddobaadkan lagu weeraray xaaladda dhanka amniga ah
Israa'iil iyo Imaaraadka Carabtana meel ay iska arkeen dhaqdhaqaaqyada ay socdeen halka masaaridana hadda la sheegay in lagu kicinayo kooxihii ikhwaan muslimiinta ahaa. dowladaha islaamka inta badanna dadkoodii waa la kala qoqobay oo waxaa dhexda loo dhigay mushkilada kala duwan halkii ay midnimo muujin lahaayeen iyagii ayaanan is arki karaynin. arrintan waxaa lagu tilmaamay marka afgambi lala damacsan yahay xukunka Cabdifataax al-Siisi iyadoo dhinaca kale dowladda Masar qoraal ay soo saartay maanta. waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Masar ay ka hortageen hub aad u tiro badan oo la doonayay in la isaga kala gudbiyo qaybaha kala duwan ee dalka Masar gaar ahaan waqooyiga iyo koonfurta. sida warbaahinta ay baahisay marka ciidamada booliiska ee dowladda Masar oo kaashanaya xogo sirdoon oo wasaaradda arrimaha gudaha ay heshay ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay hubkii ugu badnaa oo la doonayay in la geeyo qaybo ka mid ah koonfurta dalkaasi Masar. kadib howlgal ay sameeyeen waxaa sidoo kale ay sheegeen inay ka hortageen iskuday waxyaabaha maanka dooriye la doonayay in lagu gaarsiiyo koonfurta dalkaasi Masar. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay baaritaano inay socdaan iyadoo qaybaha kala duwan ee waxyaabaha maanka dooriye gacanta lagu dhigay. 2 ruux ayaa sidoo kale lala xiriirinaya inay falkan ku lug lahaayeen waxaana la sheegay in ciidamada ammaanka ay xireen. ma jiro macluumaad kale laakiin dowladda Masar ayaa u muuqanaysa inay heegan ku jirto. culays xooggan ayay wajahaysaa oo kaga imaanaya Itoobiya, Israa'iil iyo dowladaha kale ee gobolka iyadoo caalamkan ay ka dhacayaan banaanbaxyo dowladda Masar looga dalbanayo inay furto albaabka marinka Rafax. aragtidaada qaybtoosa ku reeb waad mahadsan tahay. taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda Iran Major General Amir Hatimi ayaa shaaca ka qaaday cadowgu in uu diyaarinayo qorshayaal kala duwan laakiin wuxuu yiri ciidamada ammaanka ee dowladda Iran iyo dadka shacabkaba heegan ay ku jiraan. si gaar ahaaneed waxaa lagu waramayaa in heegan buuxa la geliyay qaar ka mid ah guutooyinka muhiimka ee ciidamada ammaanka ee dowladda Iran. wuxuu tilmaamay in kastoo khasaare la soo gaarsiiyay intii dagaalkii 12 maalin uu socday oo hogaamiyaal iyo saraakiil military iyo saynisyahano la dilay haddana dowladda Iran inay awood u leedahay inay gaarto isla markaana ay ka hortagto cid kasta oo caqabad ku ah amniga guud ahaan ee dalkaasi Iran. Sarreeya Gaas Xaatimi ayaa carabka ku adkeeyay in guutada gantaalada iyo sidoo kale guutada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn heegan buuxa ay ku jiraan kuwaas oo aad loo tayeeyay tan iyo markii dagaalka uu soo idlaaday sida uu hadalka u dhigay. mas-uuliyiinta dowladda Iran ayaa hanjabaado kala duwan jeedinayay maalmihii ugu dambeeyay iyagoo ka jawaabaya hanjabaadaha ka imaanaya dhanka iyo Israa'iil. dhinaca kale dowladaha Iran iyo Pakistan ayaa u muuqanaya inay isku fahmeen arrimo ka mid ah gobolka iyo dhanka amniga iyo inay iska kaashadaan qatar kasta oo ay wajahaan. dowladda Pakistan ayaa horay shaaca kaga qaaday inay garab istaag u muujin doonto dowladda Iran intii dagaalka uu socday. waxaa wadahadal gaar ah yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Iran si gaar ahaaneed wasiirka gaashaandhigga ee dowladdaasi Pakistan Khawaja Mohammad Azif iyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Iran Aziz Nazirzadeh waxaana kulankaas uu ka dhacay magaalada Islamabad. kulankan waxaa ka horeeyay mid kale oo yeeshay ra'iisul wasaaraha dowladda Pakistan iyo madaxweynaha dowladda Iran inkastoo labada dhinac xuduud dhanka dhulka ay u dhaxayso oo khilaafna uu ka dhaxeeyo haddana waxay sheegeen arrinta ku saabsan amniga gobolka iyo cid kasta oo caqabad ku ah inay iska kaashan doonaan. dhinaca kale saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu waramayaa in su'aalo laga weydiinayo kaalintooda ku aadan in ay xoga basaas ay siiyeen hay-adaha sirdoonka ee Israa'iil. taliyaha ciidamada dowladda Ingiriiska ayaa lagu waramayaa inuu wajahayo su'aalo la xiriira qaabka ay ciidankiisa ay kaga qayb qaateen helidda macluumaad dhanka sirdoon oo magaalada Gaza ah oo Israa'iil la wadaagay inta dagaalka uu soconayo. tani 2023 waxaa la rumaysan yahay dowlado badan oo reer galbeed ah oo Ingiriiska, Jarmalka, Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo dowlado kale ay qayb ka yihiin inay la shaqeynayeen hay-adaha sirdoonka ee Israa'iil ayna u gudbiyeen macluumaadyo muhiim ah oo qayb ka ahaa weerarada ka dhacay magaalada Gaza. arrintan waxay banaanka u soo baxday wixii ka dambeeyay markii xaaladda magaalada Gaza aad ay kaga dartay oo nolosha dadweynuhu ay ciriiri gashay. dhinaca kale madaxweynaha dowladda Faransiiska waxa uu dalbanayaa in xoogagga cabinta ee Xamaas ay hubka ay dhigaan. wuxuu yiri waa inay hubka dhigaan maalmo ka hor laakiin muxuu lahaa wuxuu yiri waxaan aqoonsan doonaa dowladnimada Falastiiniyiinta bisha Sebteembar. dowlado badan ayaa go'aankaasi oo kala qaatay laakiin hadda waxay u muuqanayaan in dhammaantood ay shuruudo cusub ay miiska ay soo saarayaan oo ay ka mid tahay xoogagga cabinta ee Xamaas inay hubka dhigaan iyo shuruudo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Pakistan haddii aan eegnana waxa uu shaacu ka qaaday in dowladda Iran iyo Pakistan xiriirka ganacsi ee dhexmaraya in sare loo sii qaadayo.
waxaana uu sheegay labada wasaaradood inay ka shaqeeyeen in labada dowladood xiriirkooda dhanka ganacsiga sanadkii inuu gaaro in ka badan 10 bilyan oo dowladda Mareykanka ah. mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana tani ay ku tilmaameen mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo xiriirka dhanka ganacsiga u dhaxeeya dowladaha Pakistan iyo sidoo kale Iiraan. Iiraan ayaa wajahaysay godoomin caalami ah tani wixii ka dambeeyay markii Mareykanka uu ku dhawaaqay cunaqabatayna isdaba joog ah oo dalkaasi Iiraan la saaray. dalka Suudaan haddii aan eegnana waxaa la soo gudbinayaa muuqaalo muujinaya in calooshood u shaqaystayaal Kolombiyaan ah oo halkaasi la geeyay ay qayb ka ahaayeen kuwa la dagaalamaya ciidamada ammaanka ee dowladda Suudaan. calooshood u shaqaystayaashan ayaa muuqaalada iyaga iska duubay, warbaahinta ayaana lagu baahiyey. dowlad carbeed ayayna u badan tahay inay dhaqaalo badan ay ku bixisay in calooshood u shaqaystayaashaasi la geeyo gudaha dalka Suudaan. ugu dambeyntii in ka badan 50 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa maanta oo xadal la sheegay in ay ku shahiideen kadib markii xasuuq ay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen gudaha magaalada Gaza, iyadoo dadku ay u sii dheertahay xaaladda gaajaysiinta. saraakiisha dhinaca caafimaadka ayaa sheegay in 22 ka mid ah dadkaasi ay dhinteen iyaga oo cunto baadigoobaya, waxaana la bartilmaamaysaday 2 xarumood oo koonfurta iyo bartamaha magaalada Gaza ah oo dadka gargaarka loogu qaybinayay. saraakiisha gurmadka degdega ayaa sidoo kale sheegay 9 ruux inay shahiideen kadib markii ciidamada Israa'iil ay bartilmaamaysadeen xilli dadkan ay ku sugnaayeen agagaarka waqooyiga magaalada Rafah. waxay arrintan ku soo beegmaysaa laba maalin ka hor markii ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff uu booqasho ku tagay magaalada Gaza, isaga oo sheegay in Mareykanka door weyn uu ka qaadan doono in gargaar la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. aan u duceyno guud ahaan dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan, si gaar ahna dadka shacabka ah ee reer Gaza oo wajahaya nooc kasta oo dhibaato ah. Allah iyo dhibaatada ka dulqaad guud